بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتين بداود يالكسو دوادا برامج ورادك جنالك حولك ورارك قضبادا أن إذن كوكسو قلبين دورنا وحاقيب كنغنيا وزير بيلي أو اسكدي دي يريدي حفيظ كحيرلالين تقود قرنك يود أن لدى يرسنكرين أولا صباحي مدبا إنو لونصدي قوان دل عقاد أو ترابدا محاسا حلقان كسو بيغي ديد مدى ويريدا وان إذن سو قلبين دورنا xildhibaano ku reer ah wasiir Beelo oo kulan ku dhamaada dagaal iyo fowdo ku yeeshay magaalada Muqdisho ujeedada kulankaas iyo xog rasmi ah oo ka dambeeysa ayaan idin soo baahin doonaa qodobada kale aad maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya Axmed Madoobe oo degmada Doolow ee gobolka Jubbada Hoose ka bilaabay arrimo xasaasi ah oo dhanka dhuxusha la xiriira iyo warar kala duwan oo soo baxaya ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkana ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale hadba wixii nagu soo kordha ayaan idinkugu soo baahin doonaa barnaamij wareedka ee fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe like iyo share intuba aad nala wadaagto markana ku soo dhawaada qodobadii oo dhameystiran aanu ku bilownay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu iska diiday yeeridii xafiiska xeeladaynta guud ee qaranka Soomaaliya ay u yeertay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa waxa uu soo saaray xalay qoraal uu ku diidayo warqad loogu yeeray ee ka soo baxday xafiiska xeeladaynta guud ee qaranka Soomaaliya taas oo fariisay in isniinta maanta ay xafiiska xeeladaynta uu hortago si wax looga weydiiyo arrimo ku saabsan maaliyadda dalka wasiirka maaliyadda ayaa cadeeyay in ay soo gaarto warqad xafiiska xeeladaynta qaranka ka soo baxday ee loogu yeeray balse waxa uu muujiyay in ay ku jiraan qaladaad dhanka sharciga isagoo oo sheegay arrintaani waxyaabaha ku saabsan ugu dambeyn doono garyaqaanka guud ee dowladda Soomaaliya sida uu qabo qodobka 3 ee farqadiisa 2 xarafkiisa ba waxa uu sharaxayaa dhismaha xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuuna mas'uul ka yahay difaaca dowladda iyo xubnaha u shaqeeya maxkamadaha hortooda ayuu qoraalka wasiirka ka soo baxay lagu muujiyay wuxuu sheegay in isagoo raacaya xeerkaas kana digtoonaanaya in lagu xadgudbo mas'uuliyadda iyo waajibaadka garyaqaanka guud ee dowladda uu si xushmad leh ugu soo jeedinayo xeer ilaalinta guud in xafiiskiisu uu u hoggaansamayo habraacyada iyo xeerarka la dejiyay ee loogu talagalay in lagu maamulo arrimaha dowladda federaalka ee Soomaaliya warqad 3 maalin kahor ka soo baxday xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka ayaa waxaa looga dalbaday in wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu xafiiskaas uu hortago si wax looga weydiiyo maaliyadda dalka iyo dhaqaalaha halka uu marayo waxaana muuqata in uu ganafka ku dhigtay wasiir Cabdiraxmaan Ducaale in uusan u hoggaansamaynin u yeeridda xafiiska xeeladaynta oo maanta isniin ah lagu waday inuu tago hayeeshee waxay u muuqataa tani in uu ka cagajiidayo wasiir Cabdiraxmaan Ducaale tagitaanka xafiiska xeeladaynta guud si uu la wadaago hanaanka diin cafinta iyo guud ahaan maaliyadda dalka Soomaaliya uu mas'uulka ka yahay ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa qoraalkiisa waxa uu ku cadeeyay in wasaaraddu ay diyaar u tahay in garyaqaanka guud ee dowladda ay la wadaagto wixii macluumaad ah ee xafiiska xeeladaynta guud ee qaranka uga soo baahdo xafiiska wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee uu isagu mas'uulka ka yahay sida markale lagu cadeeyay bayaan ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya isla markaana lagu ogeysiiyay xafiisyada sare ee dalka sida ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha waxaana hadda u muuqata in ay madaxa isla galeen xafiiska xeeladaynta guud iyo kan wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya maadaama wasiirka maaliyadda uu hoggaansami waayay warqad codsi ah oo ka timid xafiiska xeeladaynta guud mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu dhaliilaa in ay inta badani aysan u hoggaansamin shuruucda iyo nidaamka kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya u degsan inkastoo mararka qaarkood la sheego in ay ku tuntaan shuruucda iyo nidaamkaas xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee ku reerka ah wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa waxaa la sheegay in kulan
ay xalay magaalada muqdisho ku yeesheen hay'adda kulankooda lagu soo waramayo in dagaal iyo fowdo uu ku dhamaaday. warar kala duwan ayaa waxa uu ka soo baxaya in magaalada muqdisho caasimada dalka iskugu yimaadeen xubno ka mid ah xildhibaanada gobolada waqooyi ee ku reerka ah wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ah wasiirka maaliyadda. kulankan ayaana iskugu yimaadeen xubnaha 11 xildhibaan ee labada aqal ee ku matala gobolada Awdal, Salal iyo Gabiley oo beesha uu ka dhashay ee Samaroon la yiraahdo. ujeedkiisu ahaa sidii lagu difaaci lahaa wasiir Beyle oo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya u qaabilsan dambiyada lidka ku ah maaliyadda, dhaqaalaha iyo sidoo kale iyo kuwa danabeysan si wax looga weydiiyo lacaga la sheegay inay si qaldani ay uga maqan tahay xafiiska wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo la tuunsan yahay in wasiirku uu si balmarsan u meel marsaday. xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka ayaana 2 maalin ka hor waxa uu shaaca ka qaaday in wasiirka maaliyadda Soomaaliya in Isniinta maanta uu hortaga xafiiska si wax looga weydiiyo arrimo la xiriira maaliyadda uu xafiiskaas baaritaanadiisa uu waday ay gabi ahaanba ku dhamaadeen si is-afgarawa ah oo ay ku kala tageen xildhibaanadii baarlamaanka federaalka ee kulanka iskugu yimiday. kulanka baarlamaanka ee ku matala wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale la sheegay in mid ka mid ah xildhibaanadii kulanka ka qayb gashay ajandihii meesha loo yimiday uu ku bilaawday mowduucyo kala duwan oo ku aadan doodo iyo dacwad uu furay sida xogo kala duwan oo aan helnay ay sheegayaan. doodaha madaliis ah ayaa kadib waxa ka dhigtay in kulanka ay ku kala tagaan xildhibaanada natiijo la'aan kulanka ay iskugu yimaadeen. xildhibaanada ayaa waxaa la sheegay in ay wasiirka maaliyadda Soomaaliya ay ka difaacayaan eedaha kala duwan ay xafiiska xeer ilaalinta qaranka uu doonayo in su'aalaha uu ka weydiiyo. horeyna wasiirka maaliyadda uuba ganafka ugu dhiftay in uusan marnaba diyaar u ahayn inuu hortaga xafiiska xeer ilaalinta guud balse wixii macluumaad uu la wadaagayo garyaqaanka dowladda Soomaaliya. xildhibaanadan ayaana intooda badan waxa ay miiska ay ugu talagaleen in ay ku difaacaan wasiirka maaliyadda qodobo muhiim ahna ay ka soo saaraan, laakiinse waxaa meeshaba ka dhashay fowdo iyo dagaal sababi karay in gacan ka hadal uu ka dhasho. qodobkan ugu dambeeya ee barnaamij wareedkeena haddii markaanu aanu eegno, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose waxa uu ka bilaabay arrimo xasaasi ah oo bulshada inteeda badani la sheegay in aysan ka warqabin. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa magaalada Doobley ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa uu shalay booqasho rasmi ah uu ku tagay halkaasi ay ku soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada. ayaa la sheegayaa in toddobaadkii hore dhammaadkiisaba kulanka golaha wasiirada maamulkaasi lagu qabtay Doobley. warar kala duwan oo aan helnay ayaa sheegaya in Axmed Madoobe iyo xubnaha la socda ayaa halkaasi waxa u tageen si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ah ee halkaasi ka jirta. warar kale oo madax bannaan ayaa xaqiijinaya in halkaasi uu Axmed Madoobe laftarkiisu u tagay arrimo kala duwan oo la xiriira dhuxusha laga dhoofiyo dekedda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. waxaa dhawaan jirtay in wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda xilgaarsiinta ee Maxamed Xuseen Roble uu shaqadii ka joojiyay kadib markii la sheegay inuu fasaxay dhuxul laga si qaldan looga dhoofiyay dekedda magaalada Kismaayo isla markaana ay ku wajahneen dalka Cumaan sida lagu soo waramay ama horeyba bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya lagu cadeeyay. guud ahaan barnaamij wareedka janalka xulka wararka ayaa halkaasi ku soo afmeeraya. inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tagay sidaas nabadgelyo.